السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضيع الجلانتي ونحن اتصال على الكتاب. Sometimes maanta waxaan inoo wadaagayaa muuqaal yar oo aad u qurux badan oo qalbigayga taabtay isla markaana taaban doona qof walba oo dunidan ku nool oo daawada muuqaalkan. Haddaba sidaad arkaysaan muuqaalkani waxaa laga duubay badda iyadoo qorraxdu soo dhacayso isla markaana fallaaraha ay cadceeddu bixinayso marka ay sii dhacayso biyihii badda buurihii yaryaraaya badda ku dhex yelay oo isqabtay halkaasoo ay bixinayaan quruxtii ugu wanaagsanayd taasoo qalbiga bini'aadanka taabanaysa. haddaba dabadeed su-aashu waxay tahay marka aad joogto meelaha noocan isla markaana aad adigu halkaas aad taagan tahay naftaadu ma ogaanayso meesha quruxda badan oo ay taagan tahay, balse waxaaba laga yaabaaba in ay kaliya is leedahay waxaad taagan tahay badda afkeeda oo neecawda biyahaas ayaad qaadanaysaa. laakiin sawirradan iyo muuqaalkan xilligan la duubay qofkii duubayay ma uusan ogeyn in sidan ay u qurux badnaanayso, laakiin teleefonkiisa igula soo baxay qofkaani haddaba wuu duubay wuxuuna isla markaana wakhtiga isaga luminayay samaynta iyo ururinta qashinka badda afkeeda yaalla oo daawadayaal muuqaalkoona waa aad u qurux badan. This is sometimes your life cannot realize the place that you are in, but the reality is when you watch it later, I recorded clip just like this one. You will remember your life is experiencing best cycle where everybody else in the world will be happy to be there. This is the place called Seaborn Pre-Incubate. It is in Cape Town, South Africa. One of the tourists from Switzerland named Selena Kroll Samira did record this video clip where she was watching. This is the sea of nature. Sometimes just your life cannot taking a video clip place photos that you are in. And she was trying to, but the reality is where you when you watch it later. This time I recorded pictures and videos. You will your life was experiencing best of cycling where everybody else in the world will be happy to be there. This is